السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان بهذا كحرن kanaalkeena Fannoor Media kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aynu magac darnay maxaa lagu xasuustaa. barnaamijkeenan maanta waxa aynu kusoo qaadan doonaa Allah u naxariistay rugcadaygii hore ee Soomaaliyeed Maxamed Suleymaan Tubic. inta aynan u guda galin barnaamijkeena saaxiib haddii ay tahay booqashadii ugu horeysay fadlan subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyadeena xiga, like dheh, siina share garee si aad ula wadaagto asxaabtaada. mahadsanid. inkastoo aynan soo koobi karin taariikhdiisa oo idil fanaanka, haddana waxa aynu isku dayeynaa inaynu qayb ka soo qaadano noloshiisa. Maxamed Suleymaan Tubic waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa ee maamul goboleedka Somaliland. waxa uu dhashay sanadii 1943. Tubic waxa uu ahaa shakhsi caan ka ah caalamka, gaar ahaan geyiga Soomaalida. sidoo kale waxa lagu naanaysi jiray Allah u naxariistay fanaanka boqorka codka. sidoo kale waxa ay taariikh lama ilaawaan ah ka dhigan tartankii fanka ee qaaradda Afrika. Maxamed Suleymaan Tubic iyo Xaliima Khaliif Cumar Magool oo ay halka ku hanteen beladii ugu sareeyay labka iyo dhadiga, sidaana ku noqdeen libaxyadii qaaradda Afrika. taariikh lama ilaawaan ahna kula soo laabteen geyiga Soomaalida. sidoo kale haddii aynu soo qaadano qaar ka mid ah heesihiisa kuwa ugu caansanaa, waxaa ka mid ah heestii Gufaaco, Adduunyada Nin Dhoofiyo, Hooyoy La'aanta iyo kuwa kale oo aad u badan. adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo dhergiyo nin dhowr qaday andheefay dhergiyo nin dhowr qaday intaas kadib waxa uu ku geeriyooday Allah u naxariistay fanaankeenii qaaliga ahaa magaalada Munich ee wadanka Germany sanadii 2014. waxaana aas qaran loogu sameeyay fanaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu baryaynaa inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo. آمين آمين آمين.